hay'adda wadaniga SVO iyo hay'adda diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Somaliland ee Northford ayaa maanta magaalada Laascaanood ku qabtay shir ay isugu yimaadeen dhammaan hay'adaha gobolka Sool ka shaqeeya oo lagaga hadlayay arrimaha abaaraha iyo xaaladda degdega ee gobolka Sool ka jirta sidii wax looga qaban lahaa iyo wixii hadda laga qabtayba waxaana ka soo qayb galay kulankan wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Salmaan Yuusuf Cali Koore gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Jiire waxaana hadaladoodii kamid ah sida tan la soo daadjiyo shirkana dhammaan kalastarada dhan buu iskugu jiraa wasiir hadda waxaan halkan ku soo bandhigaynaa waxa kaarantiga hadda ka socda gobolka oo ilaa Xaysimo ilaa iyo Buuhoodle deegaanadaas ka socda run ahaantii waxaan kaloo hadda saad adigu nagu boorisay hadda ka hor kalastarka waxaad amartay in xaaladaha gobolka Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle loo dhabar adeego oo ma garanaysaa asasman laga soo sameeyo asasmanadii aad adigu dirtay baan xitaa hadda halkan ku soo barasgareynay oo magaan waliin hay'adaha halkan isugu yimid iyo barnaamijka wada hadlaysaan runtii wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo qabanqaabayaasha shirkanba aad baan salaamaya SVO runtii waa shir loo baahnaa muddo dheerna aynu sugaynay shirarka noocan oo kale ah wadogtiino waqtiga hadda aan ku jirnaa waxay la adag waxay la roobaadkiya dadku roobku ka daahay meel dhifo wax yar heleen mooyee xaaladii emergency-ga ahayd casaanka weli ku dhaweyd gobolkeena still way taagan tahay biidhaamiska uu socdaa abaari way socdaan way taagan tahay waxaan leeyahay shir baan mar soo nimid intiina badan oo aynu kaga wada hadlaynay bal in dadka wax la gaaro jawaabaha hay'aduhu sidii kulay iyadoo meel kale waxay kaga xiran yihiin uma firfircoonayn waan jecelahay in dadka loo gurmado maanta lagu hayaa shirkii xuseynaya abaaraha Northford oo la soo daadajiyay oo heer gobol yimid annaguna aanu joogno aniga goboltoorihii iyo rag badan oo kale madaxa sharaf bay inoo tahay maalinta ka dambaysa in maamulku uu hoos u sii daadego hay'aduhu ay xogogaal noqdaan oo ay dalka hoos u soo daadajiyaan degmooyinkii iyo tuulooyinkii inaad ku siqdaan meelaha ay dhibtu ka jirtana inaad taabataan shalayta dhul badan baanu maray aad iyo aad u badan ayaan maray ka wasiir ahaan iyo rag badan aan wada soconay malaha sidaan 7 aroornimo u bilownay socodka waxaanu nimid 5 galmood aad iyo aad baanu u aragnay dad badan oo baahi qaba baahida ilaah baa dabooli kara laakiin intii aynu awoodi karno mana lihi hay'aduhu wax kasta way qaban karaan laakiin kullu qorshaha jirana waxa weeye in aynu yeelano qorshe dhow iyo qorshe fog marka dad baa dhiig joojin u baahan dhiig joojintuna waxa laga yaabaa inay heli karaan oo ay ugu mudan tahay biyo in la heli kara laga yaabaa marka booyad ama 2 ama 3 ama 5 ama 10 tuulo la siiyo ama dad dhiban ama vulnerable groupka hooyooyinka caruurta dhulka ay nolosha ugu adagna waxa ku nool dadka vulnerable ko caruurta iyo dumarka iyo dadka waayeelka ayaa nolosha ugu adag ku nool marka adeeganada waxaan qabaa inaad runtii anigoo isla rag karti iyo dumar kartiliba waa joogaan inaad xogogaal dhaba noqotaan Farxaan Maxamed Caydiid wararka RTN magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool